isla ciyaaraha tartamada kubadda cagta ramadaanka waa kuwo aad looga xiiseeyo Soomaaliya gaar ahaan xilligan lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan balse sanadkan waxa xiise gaar ah u yeelay koox dhan oo dhagoolayaal oo ka qayb galaya ciyaartaasi waxay ka mid yihiin kooxaha ugu taageerada badan ee sida aadka loo jecel yahay hab ciyaareedkooda wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray farsamooyinka iyo shaxda ay la soo shirtagayaan ayay halkan ku falanqeynayaan daqiiqado yar ka hor ciyaarta galabta si wanaagsan ayay isula garteen ciyaaryahanada kooxdan waa dhagoolayaal naadiga Sonad waa mid iyaga loo aasaasay sanadkii 2010 kadib markii ay fursad ciyaar ka waayeen kooxihii ay ku kala jireen waa dhaw furin waa dhaw furin ciyaar masinaan كتير جيران مركا أنا جاوا كحناقة ارتدوا سوري ما له سوق أنا ساسكو بشلان كوادو فرو بحيان هذا كوا حدا مسترنا ما هذا ولا يقنا koobka ramadaanka waa fursada kaliya oo ay ku soo bandhigi karaan xirfadooda kubadeed inta badan dadka naafada ah marka Soomaaliya la joogo si gooni ah ayaa loo takooraa balse marka ay kubadda cagtu xaalka yimaado taa waa ay ka duwan tahay ciyaartooydan dhagoolayaasha ah waxay leeyihiin taageerayaal ka badan ciyaartooyda kale ee wax maqli kara ama hadli kara dhagoolka uu dhili kara kubadda saa waragti kubad macaan soo bandhigan dhagoolada inkastoo laga ficnaa kuwa kale laakiin referee wuu hiiliyata inkastoo la karo rayahan dhagoolada beeleed sam waxa uu malinaysa labada goolata in dhagool lehnin si uu dhilan qaabaan banonigooda kubadda cagta macnaha markii la qiimeynayo qof markuu lagu gooyo ma dhili kara laakiin mar hadduu dagaalaya uu dhili kara waa lugiisig waa taam waay kooxdan oo 30 ciyaartooy ka kooban kama diiwaan gashana xiriirka kubadda cagta Soomaaliya caqabada ugu weyn waxa ay ka haysataa dhanka sharciga qaab waxa jira maaragtay aan communication isku fahmi karno annaga iyo maaragtay teamka ciyaaray iyo teamka ka soo horjeedaba waxaan sameeynaa oo kale markii aan u baahanay inaan farin biyeerino teamka ka soo horjeeda ee dhagaha leh waxaan ku wargelinaa inay maaragtay xayati maxallahay aysan ciyaarin markii ay maqlaan seeriga ama garsoorka uu ku dhawaaqo farambiga si markaasi ay u dareemaan teamka kale ee aan dhagaha lahayn in maaragtay looga istaagay kulankan oo sanadkiiba mar soo mara ciyaaryahanada maqalka naafada ka ah waxa uu kaga dhigan yahay fagaare ay fariin ku gaarsiiyaan xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliya oo labaduba iska indhatiray codsiyadooda ku aadan in laga taageero dhanka agabka isboortiga Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho